الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمان ما تشرف طيبوه الرئي وزيرنا قرن كجمهورية الصومال تكتشوكتا أقاسمية شقود حبناها عيانتها هالكدي سميمي مدنتا متكستم ملكديسة مقان كيسة ماموس كيسة يمسب كيسة وحلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين بيوتشوغنا رنتي هذا الكلام شغل بيسويسي خير الكلام ما قل وذل سيد حديث رسولك صلى الله عليه والسلام. هذا الكلام تكونون بحر كشرون بمهمة وأكسورها هي واجبات كي يشقضى إن سويسة ما حد كان وقفته. رنتي اسمه أقوم بكوردنا marka loo eego aragnimadeeda iyo tan ka soo shaqeynay waliba markay noqoto human resource management in binaana la maamulo oo laga dhiso xagga aqliga aqoonta altitude iyo akhlaaqiyadka iyo waliba duruufaha ku xeeran qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ahlan nahay dal boqolkiiba 95 ee la soo dega baahidooda waxay u baahan yihiin marka loo eego inay 5% ka tahay waxaynu dhoofinaa taasina ay keenayso oo aanay suurtagelinahayn inaynu yeelano fursado badan oo shaqo iyo dhaqaale suurtagelin kara in dhammaan la koobi karayo ama la siin karo fursad dhammaan dadka u baahan dhalinyarada soo baxaysa u baahan shaqada taa macnaheedu maaha inaynu ka tegayno inaan cid shaqaalayn waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi la geliyo la sii wado waan ogahay in la sameeyay maxadka iyo waliba maxadka maaha hay'adda shaqaalaha la sameeyay 2003 inta ilaa imkaynu maraa 2019 muddadaas waxa isbedelay 8 gudoomiye waxaan filayaa in sagaalaad soo bixilo islaamaha waa sunnaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee mansabka iyo xilkuba uu sheegayo inay tahay qoriiso dhiib walaalkay shalmaakran ugu mahad cimilada dadaalkiisa iyo juhdigiisa iyo waliba tamartay isu geeyay tiimkii la shaqeynay sunnaha dawladnimo baa keenay inay qoriiso dhiib tahay oo mid maali yimaado isaga ugu mahad celinayna wuxuu qabtay aniguna biidnillaahi tacaala taariikhdu baa sheegay doonto maalinta sidoo kale aan cid ay xigto ugu wareejay Ilaahay u qadaro waxaan oran lahaa markay noqoto hab maamul shaqaale waxay ka bilaabantaa oo waxa laalo waxa juhdi ay qabteen ku soo ururaya si cilmiga waxa waa position description waa in position ka shaqada loo qaadanayo la qeexo ilaa laga gaarayo in qofkaas ama beeshan ka galo ama uu noqdo qof shaqada laga saaray procedure dheer oo waqti gaar ah lagu saamaxay in ku sharxi karahay weeye kaasi wuxuu sheegayaa markaa in ay ku jirto in imtixaan laga qaado panel imtixaan ka qaada jiro imtixaanka marka laga qofka soo baxa uu dabeedna hawlgalkiisa bilaabo shaqagelin la sameeyo ilaa iyo noqonayo gunadiisii iyo benefitskii uu baahnayo wixii la siiyo waxaas un bay ka ratibmaysaa in siyaasadka iyo xeerka shaqaaluhu uu noqdo dubdhaxaad iyo aasaas ah in lagu dul shaqeeyo taa ka duulaya ma noqonayso haddii salaada adigoo faatixada aan ku xidhan in aad sare jooga ku ataxiyaadsato suurtagal maaha waxaana la socdaa procedure noocaas ee position description ka bilaabmay in la qeexo position la doonayo ama wasaaradda soo dalbato ama ha noqoto position ka bilaabmay ama ka ratibmay cid ka baxday haddii la doono in la yiraahdo war sare joogaan isaga ataxiyaadsanne ataxiyaadka iyo salaamo naqsiga noogu soo xid oo inta ayaan la marin waxa weeye xaraam dhicmayso intaan joogo dhicmayso ilaahay damkii wax suurtagelayna maaha asbaab aanu samayn karo dama garanayo waa xusay mahdi baan musharaxiin wada hayno wasiirku wuxuu la taliyaha madaxweynuhu wuxuu dawladaha hoose saaxiibku Cabdiwaahid dawladaha hoose Soomaal marin waa ka ducaystaa bari dawlado la lahaa madaxweynuhu maayir buu ka dhigayaa oo golaha deegaanka kala daya farxaan ma maayir suuqa meel habtii mooyee waxaan u jeedahay kama baryin waayo waa shaqaadu adag xogayada Soomaaliland saaxiibku Cabdiwaahid waxa xusuusinaya dadkana waa sheegaan xogayada Soomaaliland agaasimaha guud ee warshadaha maraha hay'adaha caalamiga ku maxalliga la soo shaqeeyay maxaa xildhibaanka odayga maraha wadacnayna waxaan ahay kaydka koowaad ee xildhibaanada qaranka qaybta Yurub ayaan ahay waxay waqtigeeda ilaahay ma dalacile
marka wasiirka duulistan soo maray shaqooyinkaas waxaan isla waaragnimo kugu filan iyo aqoonba waad u leedahay shaqadan waxa uu muhiima ducadiina wax weyn bay ka taraysaa inaanu shaqadan idinkaanu idin shaqaynaynaa aanu ku guulaysanayno midhadhal wanaagsan ka keenno inaad ducadan ugu kabtaan intaasoo baan idinka baahannahay wixii nidaamee yaalla institutionada had iyo jeer waxa la yidhahdaa dhakhtarku waxa uu marka uu ogaado uu qofka patientkii hadlay uu sheegto cudurka haya iyo aqoonta isagu u leeyahay caafimaadka uu sheeganayo labada interventionka isku darka ka dhex dhacaba dawada laga soo dhex saaraa haddaanu qofku hadal ama aanu dhakhtarku aqoonta lahayn dawada lama helo been baa loo qoraa qofka waxaana la socda consultantka ama qofku hogaamiyana waxa weeye institutionka uu tagay ama organizationka uu tagay markuu organizational ama institutional culture-ka eegu qiimeeyay oo darasay oo ogaado siduu u yaalo iyo gesture-kiisa luqadda reer galbeedka waxa la yidhi gesture-ku waxa sida uu u shaqaynayo iyo aqoontiisa labadaa markuu isu geeyo waxa ka soo dhex bixuu dawada uga qoraa waxaan eegi doonaa qiimeyn doonaa sida ay jirto hay'adda shaqaaluhu waxaan eegi doonaa maxadada iyo hay'adaha kale kaaba sida u shaqeeyaan taas ayaan ku salayn doonaa halkii la marayay inaan ka amba qaado anaa u sii qaadaya wixii toosinaya aqoonna ku kaba aad iyo aad waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu